سرواد صاحبي الصباح ونكسن ورد دقيقة وهذا صراع شيء إن الله يدوكامي جانب ليهين ديجان كسواد وطبعا كدي مركي قلالة سي هالكاسي كده عينو دحية سود أفريقيان كي جانبته طبعا وحال شيء إن دوكامي ذا إنتو ده بدن الحري بوليس من هالكاي كارين وركن نقصو قاري هالكاسي شيء إن طبعا ديجان كوايت سيتي كده عادي أرهن لياب اللي قدي مركي نين أجنبي أو دوكان هالكاس كلها أو تو شو قدي لي نين معاميشي ساها كدي من هالكاسي ربشة وويني قبل أو ذين ولا هذا السعودة دوكامي بدن أيانا لبوبي قاركي كلنا ولا حري دتكون iskaga carareen ajaanibta ahaa maadaama xaaladdu ay duca karan tahay booliska ayaa halkaas gaaray arrimihiina baarayo walow la qabtay ninka macaamilkiisa ahaa togtay arrintan ayaa ku soo aadayso xilli maalmihii la soo dhaafay aad u dekanay deegaanka Soweto amaba halkii sano la soo dhaafay aad u dekanay inta badan dhacdooyinka rabshadaha wata ay ka dhacaan Koonfur Afrika waa halka ay ka bilowdaan oo xudunta u ah dabcan arrintani ayaa waxay noqonaysaa arrin aad cabsi ugu gilgishay dadka dhammaan deegaanada Gauteng Johannesburg Pretoria Soweto iyo waliba agagaaraha u dhow oo dabcan ay ajaanib badan ku ganacsato warbixintan ayaa waxaa la soo warinayaa in boolisku hadda ay gaareen halkaasi ayagoo dabcan ammaanka sugaya walow dadka weli ay careysan yihiin oo banaanka ay joogaan meydkiina weli aan la qaadin ninkii la dilay macaamilka ahaa dabcan waxa la isku qabsaday ilaa hadda lama sheegin laakiin waa dhacdo inta badan iska dhacda alaaba dadka macaamiishu ay nafsadahantooda dabyar mashadaan oo dhibaatooyin badan ay Soomaalidu u geystaan markay wax ka gadanayaan sidaa darteedna lama wixii ku dhacay ninka dilay oo ajnabiga lama xaqiijin inuu nin ajnabi ay yahay oo Soomaali yahay ama Ethiopian yahay ama ajaanibta kale Afrikaanka yahay balse wararkii ka soo baxay gadaal ayaan kala soo socodsiinaa